عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتم بعد السلام يا صلاة السلام السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنت كبعدي waxaan doonayaa inaan maanta halkan kaga hadlo ama ku sharaxo casharkan horteena aad ka muuqda. casharkan waa casharada ugu adag marka la qaadanayo quraanka kariimka dhammaanba aayadaha kanay waxa weeyaan quraanka kariimka ayaa ay ku soo arooreen dhammaantood aayadaha waa meelaha ugu adag weeyaan. waxa ayna tahay tanwiin uu ka dambeeyo hamzati ama hamzatul wasl waxa loo yaqaano hamzatul wasl waxa la yiraahdaa xarafka halkaas horteenaas ama xarafka halka ka muuqda hamzatul wasl baa la yiraahdaa. meelo badan ayuu quraanku soo arooray dhammaantoodna meelahaas oo dhan waxa loo baahan yahay in si fiican aad u fahantid waxa uu yahay qaabkee loogu dhawaaqayaa qaabkee loo akhrinayaa. tusaale ahaan oo kale marka aad higaada soo qaadatay aad iyo aad bay kugu adag tahay qaabka aad ugu dhawaaqaysid ama qaabka quraanka uu yaalo qaabka loogu dhawaaqayo aad iyo aad bay u adag tahay. marka haddii aad heshid qof markaas si fiican kuugu faa'iideynaya oo markaas ku fasiraya dhawaaqeeda yani qaabka dhawaaqa kuugu sheegaya wafalillahi alhamdu wal minna. laakiin haddii aad quraanka ku aragtid meelahan oo dhan way adag tahay in aad si waadax oo wanaagsan oo qurux badan uga dhex baxdo. hadda waxaan doonaynaa in aan meeshan aan ku akhriyo kabacdina aan ku qaabka ay tahay iyo waxa la doonayo. tan ugu horeysa tusaale ahaan oo kale tan markii la qorayay ama buugan markii la qorayay waxa laga tagay ya ba laga tagay halkaas ya-daasi waxa ay ya-da waxa laga tagay halkaas ayaa ya ku jirtaa halkaas ayaa ya ku jirtaa marka ya-daas laga tagay ya-da haddii laga tagayna inta badan yani iskeeni mayso marka ereygan iyo qaabka uu dhawaaqmayo yani isma keenayaan. laakiin ya-daasi marka lagu daro sida haddaan ugu daray oo kale dii aan soo dhaweeyo waan soo dhaweynayaa halkan aan keenayaa kabacdina ya-da halkaasaan kaga daraynaa halkaas oo kale labadii dhibcood hoostoosan ka siinaynaa. markan oo kale aayadii oo saxa weeyaan. marka aayadani waa aayad ku jirta suurad ka mid ah suuradaha quraanka kariimka aan marka hore u galno fasiraadeeda fasiraad aan dhigina sida yani dhawaaqa lagu dhawaaqayo anigoo sharaxaad fiican oo aad yani aad u fahmi doontid aan ka bixinayo. waxa laga yaabaa marka aayadan xigta ayaan fasirayaa ama aan ku sharaxayaa. halka ugu horeysa inta ugu horeysa waxa weeyaan labada kaliya ayaa waxa loo yaqaanaa ra kan ku xiga waa si weeyaan tan ku sii xigta waxa loo yaqaanaa yaa tanina waxay noqonaysaa tin tun ama waxa loo yaqaan tan marka loo qoriyo qaabkaas noqonaysaa. tinna waa sida hadda halkan ugu qoran tahay tunna waa iyadoo labada xabo leh marka tin weeya raasiyaatin yaa alifka yar waxa weeyaan alifka yar ya-daas ayuu la socdaa marka yaatin ayaa lagu dhawaaqayaa. haddii ay saasta intii hore waata raasiyaatin ba ku dhawaaqa. intan dambe haddii aan eegno inta dambe waxaan uga jeedaa ilaa inta haddaan ka hadlayno haddii aanay intani jirteen tusaale ahaan oo kale haddii ay noqon lahayd meel qarsoon oo kale oo aanay intani jirteen intan kaliya waxa lagu dhawaaqi lahaa alifkan waxaan ku soo qaadanay qayb ka mid ah gaada alifkaas waxaan aan u isticmaalaynaa qaab ah marka i'malu bay noqonaysaa markan oo kale alifkan i'malu waan hayna.
laakiin haddii ay jirto qaybtan hore oo sida haddan kaaga muuqata icmaaluu lama dhahayo waayo waxaan ku yidhi haddii aanay jirteen intan ayaa qaabkan lagu dhawaaqayaa icmaaluu laakiin haddii ay tawiin leedahay oo aragtid halkan oo labadan xabo ah iyo weliba dee hamzadan ama alifkan halkan sida qaabkaasa haddii ay jirto qaab baa la sameynaya qaabka la sameynaya waxa weeyaan horta tan halkan kaaga muuqata ereygan halkan kaaga muuqda ee labada tawiin leh hal xaba laga soo qaadanaya hoos dhig baa laga dhigay baa loo sameynaya hal hoos dhig baa loo sameynaya ti baa la dhahayaa ti meeshan tin weeyaan laakiin hadda waxaan u isticmaalaynaa ti keliya ti marka la sameeyo waxaad ku darsanaysaa nuun hoos dhigan nuunka hoos dhiga leh iyo caynkan ayaad isku reebaysaa marka waxa aan ku yidhi halkan ti ka dhig nuun aad adiga jeebkaaga ah ayaad ku darsanaysaa nuunkaasi markaasi oo hoos dhigaysaa kabacdina isla caynkaasaad ku qabanaysaa oo alifkan waa laga boodayaa alifkan haddii xarafba ka horeeyo oo xarafkaasi kor dhigan hoos dhigan alifkan mar walba laga boodaa haddii xaggan xaraf ka xigo marka nuunka hadda ka xiga nuunkan aad keensatay nuunkan iyo ba isku daraysaa marka maxay noqonaysaa waxay isku noqonaysaa raasiyaati nicmalu nic baa la dhahayaa labada nuunkan iyo caynkan markaad isku reebaysid waxa ay noqon doonaan nic marka alifkan waa laga booday alifka sidiisaba waxa weeyaan lama soo qaadanayo marka waxay noqon doontaa alifkan in la kasalay oo kale laakiin halka waxaad gelisay nuunka iyo caynkan ay isku qabanaysaa marka raasiyaati markaad tiraahid baa nicmalu dhahaysaa raasiyaati nicmalu meel walba oo tawiinka aad ku aragtidna hoos dhigaas oo sameynaysaa kabacdina nuunkaasaad ku darsanaysaa hoos dhiga leh kabacdina xarafka ku xigaad ku qabanaysaa raasiyaati nicmalu ala daawuuda shukra marka xarafkaasi ama weedhaasi qaabkaas ayay noqonaysaa waxa aynu u gelaynaa qaybtan kale haddii godnin yahayna sidoo kale waa la mid sidii qaabkii baa samaynaysaa tusaale ahaan oo kale halkan laba godnin khayrun bay ahayd intaa ugu horeysa ama intaas waxa weeyaan khayrun intan kalena waxa weeye itma'anna bih alifkan i baad ka dhiganaysaa itma'anna bih laakiin waa marka aanay tani jirin itma'anna bih markaa leedahay laakiin haddii tani ay ku jirto meesha way isbedelayaa alifkan waa la kansalayaa waan kansalaynaa alifkan waa tuuraynaa waxaynu sheegnay in halka alifka lagu bedelanayo nuun hoos dhig leh ra'dan laba godnin waxaan waa laba godnin hadda saarto quraanka aad ku aragtid waa laba godnin waa laba xabo saas oo kala quraanku qaabkaas u dhigaa laakiin hal godnin baa ka dhigaynaa meeshan laba ah hal godnin baa ka dhigaynaa waxaana ay noqon doontaa sidan halkana nuunkii baa ku darsanaynaa marka khayru nid nuunkan iyo taada saas u qabanaynaa nid khayru nitma'anna bih khayru nitma'anna bihi badahina marka meel walba oo aad ku aragtid tawiintaasi qaabkaas ayaad ugu dhawaaqaysaa khayru baa ka dhigaysaa ru baa ka dhigaysaa run ka dhigimaysa marka maxaa ku darsanaysaa nuun ayaad halkaa ku darsanaysaa oo hoos dhig leh khayru nitma'anna bihi okay maxaa xarafka ku xiga halkan haddaba yaadii aan ku darsano yaadii waxaan ku dartaa yaadan waa laga ilaaway waa khalad yacni fani khalad yacni gacmeed weeyaan marka halkaa yaa baan ku darsanaynaa yaadaasi haynaga ilaawina weliba waa ya shad leh oo kordhiga warahbaaniya bahaniya ta markaa taada oo kordhigayna nuunkii alifkan waa kansalaynaa nuunkii baan halkaa ku bedelanaynaa marka nuunkan iyo baasal soo qabanaya warahbaaniyata nib tad'uuha warahbaaniyata nib tanib tad'uuha sasan u isticmaalayna
ورهبانية ابتدعوها marka ta tan la dhihi maayo ta baa la dhahaya iyo ibtada'uha warahbaniyatan ibtada'uha warahbaniyatan ibtada'uha marka yaadi halka waa laga yareetay haddaad aragtaan waa halka ku aragtaan ay ka maqan tahay waxay la micno tahay in khaladkani gacan uu yahay marka ha u malayn in aayaadkii quraanka hala bedelay ilaahay nagama dhigo kuwa aayaadkiisa quraanka kariimka ah bedela aynu halkan soo eegno waxaynu ugu dhawaaqaynaa aw lahwa wa baan dhahaynaa wan way hada laakiin wa baan dhahaynaa alifkan wowga wata marka wan la qorayo oo kale wan win won alifkaasi mar walba saas u haanjiri marka alifkan halkan ha ku wareerin wowga wata wowga alifka lagu madhajiyo marka يعني واحد كسو قالتي أما هذا أن كشرحنا قيب كمية شرح هذا أما درسي قام والله القرآن كله صحيح القرآن يعني هي اللي هو برنايو مركا ون ساس الله قرأ وين ساس الله هذا ون مسا مركا كانوا كهري ألف بمرة البوطة مركا ون تنوى ألف كيسي ألف كيسة مركا مرها دي أن ألف كورنيك وصميني ولا بوديا تن marka lahwan bahid laakiin maanta waxaan dhahaynaa lahwa baan dhahaynaa markaas nuunkii hoos dhiga lahaana ku daraynaa lahwa nin halkan nuunkan nin bal dhahayaa kii qunaha kan nin lama dhahayo laakiin quraanku wuxuu leeyahay nuun aan lahayn calaamadan reebninka ma laha marka نون ساسو قلابة سكتشرة بعد تصرحان من اللي منا ومد له علامة داس له منا قرآن كوحليه مد آن لهين علامة دا ميم كهوستيق وليه لكن وحن ملها يعني هي ساسو كلويه مركا كاس ساسو قلاب من بلدها من لبنده مركا نون كان ويكو خلطين وحني ملهين علامة داس ملهين ويضع علامات كما قطعي سي لو يراهدو marka nuunkan hoos dhiga leh iyo nuunkan calaamada aan lahayn marka la isku qabanayo nin way noqonaysaa nin marka wowga kordhig nuunkiina hoos dhiga lahaana keen meesha aw lahwa nin baan dhahay nuunkan iyo nuunkan oo la isku qabtay weeyaan nin faddu أو لهو فضوا والله يا أوكي ونسيس عنينا هرا نسيس عنينا إن شاء الله تعالى حرف إنتنا وحويا قاب كيوم باصميننا تي سماها تي ذا هوسليك كلي كدك تين بهدول تي كدك ممكن ماشا كان ألف كان كانسل مركا بيزي نا تي نيل بالحياة نون كان هوسليكن يلا كان على سوق بنيا بزينة الكواكب هي سفيعا وسعونينا هدنا هي هل كان واسدو كله maxaan dhahaynaa tu weeyaan somaha tu iyo nuunkii hoos dhigaha tun way hadda meesha ku qoran laakiin taada waxaad ka dhigtaa hal gudniina nuunna meesha keenso marka waxay noqonaysaa fit labadan isku qabo labadan waa fit na هي تنيل فتنة انقلب يا فتنة تننقلب ويا تننقلب فتنة انقلب ويا تنحي تلفت كده وحويا يضوء أن لهين تاس ويان وقدنينكاسي حالي ريبنينكاسي آن لاموجين تبادن مركا فتنة سي لوردهو قرآن كقاب كويان مركا هوسديك هل هوسديك ويا مهلبو هل هوسديك فتنة انقلب مركا قاب كاس اياد استعماليسا وحاينو حدنا قصعوننا إسلايادي ويان هل كان وحاكو عرقتا سوا كلمة سوا halkan an bay ahayd oo laba a bay ahayd laba waxaan leeyahay xaraka ah hal xabad ka soo qaadanaysa a marka nuunkii hoos dhiga lahaana ku darso sawaahaye a nil nuunkan
يلا كان ترتر كان ولا ترتر يا كان ألف كان مركان نون كان يلا كان أي اسكو قبنيسا أو أي ريبين لان كان ينون كان هوس لجنا اسكو قبنيسا سواء العاكف العاكف أي استعمال قاب كاس أي دو استعمال سواء العاكف هران وسي سعونينا waxay noqonaysaa tan iyaduna sidii qaabkii sharaxaad ahaa ayaad samaynaysaa deelkan hoos dhig u samee alifkana tirtir nuunkii hoos dhig lahaana keen markaa ka iyo ramaadi markaa tiraahid nuunkan iyo shiinkan isku qabo shiinkan halkana isku qabo karamaadinish taddat deelkan oo shadkan leh sharaxaadiisa isaguna casharada aan soo dhaafnay ayay ku jirtaa karamaadinishtadat samaan karamaadinishtadat qaabkaas ayaad ugu dhawaaqaysaa waxaa inoo xiga iyadana sharaxaada ereygan qaybtan rajulun bahid iyo iftara rajulun gooni iyo iftara haddii intaasi ay maqan tahay oo intaasi aan jirin افترى لوردايا افترى ويان افترى انت بدن ما مقل بس افترى على الله اساس قاب قسويا marka hadii laakiin ay intani jirto waxa sameynaysaa qaabkii hadda laan kan laba gudniin buu leeyahay laakiin hal gudniin baad ka dhigaysaa hal gudniin nuunkiina meesha keen waxa dhahaysaa rajuluniftara qaabkaas ugu dhawaaqaysaa marka iyadana waa asaasay u socotaa okay waxa inoo xiga iyadana qaybta xigta waxay noo noqonaysaa xaggana ka soo bilowno hal mar ayaynu tana inoo xigta iyadana waxa aad halkan kaaga muuqda xarafka ugu dambeeya waa maxay xarafka weeyaan hal kordhiga oo samayso hal kordhiga oo sameeynaa xarafka ugu dambeeya hal kordhiga oo sameysanaynaa laba kordhiga waa ka deynina kana waa tirtireynaa kana waa iska tirtireynaa meesha kan waxaan ku bedeleynaa nuun hoos dhigan marka waxay noqonaysaa jazaa'anil husna ya jazaa'anil husna somarti jazaa'anil husna okay xarafka kan ayaa halkan kaaga muuqda isagana haye waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa taadan hoos dhiga leh hal hoos dhigan ka dhigaynaa yacni laba hoos dhiga ka dhigmayno hal hoos dhiga inooga dhig hal hoos dhiga inooga dhig kuwa tirtireynta iska tirtir hoos dhig hal hoos dhiga weeyaan nuunkii hoos dhiga lahaana keen qaryatiinistatcama ya qaryatiinis niinka siinkan maadaama aynu tan tirtirtirayno mar walba nuunkan hoos dhigan iyo siinkan isku qabanay qaryatiinistatcama ahlaha horaan usii socon doonaa halkan waxaa kaaga muuqda iyada intan caadi ahaan ugu soo dhawaaqo wanaada marka iyada dhibaato kama taagna wanaada haya nuuxun iyo ibnahu bahayd ibnahu marka tan haddii aanay intani jirin waxaan oo dhan aanay meesha ku qornayn intan kaligeed wax lagu dhawaaqayaa ibnahu laakiin haddii ay meeshii jirto waxaan ugu dhawaaqaynaa qaabkan intan horaan ugu soo dhawaaqayada dhibaato kama taagna wanaada caadi si waadaxa wanaada waa dhahaysa halkan nuuxu waa dhahaysaa oo meeshan laba gudniinka ah hal gudniin baad ka dhiganaysaa nuun meeshan hoos dhigan baad keensanaysaa maxaa dhahaysaa nuuxu niba nuunkan ee alifkan waa tirtiraysaa isaga mar walba nuunkan iyo baadana isku qabanaysaa markaa nuuxuniba nahu okay waxaa inoo dhiman halkana sidoo kale waxaan sameynaynaa deelkan kordhig aanu sameynaynaa labadan batirtir deelka hal kordhig baanu sameynaynaa nuunkii hoos dhiga lahaana keen caadanil uula ya caadanil uula oy haddii aan midabka ku yara bedelo midabkan yara bedelaynaa si meesha ay uga muuqato
okay deelka kordhig u samee kan alifkan iyo alifkana tirtir labadanba tirtir nuun hoos dhigana u keen nuunkan iyo laankan ayaa la isku qabanaya laankan ayaa la isku qabanaya marka caada iyo nil ula saas ugu dhawaaqaysaa caada nil ula waxa aan sameynaynaa markaa haye tana inoo xigta isagana higaada oo dhan halkan ayaan ku koobnay marka qaybtan ayaad ka heli doontaa insha Allah taala waxaan ugu talagalnay in Allah iyo xagga rabbi aan ugu dhawaano in aanu quraanka kariimka ah balqaabka loo higaadinayo loo akhrinayo laxniga iyo waxyaabahaasi inaynu aad iyo aad isaga zuulino marka qaabka aynu sharaxaadaha aynu ku keenino waxa weeyaan in aayaadka quraanka kariimka si wanaagsan loo akhriyo marka hore aan ugu sii socon doonaa aayadan khabithatin weeyaan horta marka inta ugu horeysa waa intee intan weeyaan khabithatin ayaa lagu dhawaaqayaa haddii haddaba intaasi aanay ku jirin oo meesha ku qornayn intan dambe waxay noqonaysaa ijtuthat baa lagu dhawaaqayaa haddii intaasi aan jirin weeyaan haddii laakiinse intani ay saaran tahay meesha alifkan waa laga boodaya alifkan kuma jirayo oo markaa waxay noqonaysaa taadaasi maxaan ka dhigaynaa hal hoos dhiga laba hoos dhiga ka dhigi mayno hal hoos dhiga ka dhigaynaa meeshanna nuun ayaan keenaynaa hoos dhigan nuunkan hoosta yani hoos dhiga leh waxaanu ku qabanaynaa jiimkan reeban ayaan ku qabanaynaa marka waxay noqonaysaa khabithati nijtuthat qaabkaas ugu dhawaaqaysaa khabithati nijtuthat okay halkan iyadana baynu si fiican aynu doonaynaa inaynu fahano iyadana laanka ayaa halkan ku arataa laba gudniin buu leeyahay hal gudniin ka soo qaado halkaa gudniin markaa ka soo qaatid nuunna meeshan keen alifkana tirtir nuunkan hoos dhigan iyo qaafkan isku qabo halkan alif baa ka maqan wa amwaalu bahayd marka hore waxaa ka maqan alif yar alifka yar ku darso haddii ay suurtagal tahay alifka yar ku darso waa qoraalka baa laga yaabaa weeyaan marka wa amwaalu niqtaraftumuuha saas lagu dhawaaqayaa wa amwaalu niqtaraftumuuha wa amwaalun bahayd marka hore laakiin waxaan u bedelnay in aynu hal gudniina ka dhigno oo ay noqoto wa amwaalu niqtaraftumuuha waxa aynu qaadan doonaa qaybta ku xigta oo noqon doonta qaybtii ugu dambeysay okay haddii aad aragtid quraanku waxa uu leeyahay xaruf badan oo laakiin aan higaada lagu qaado tusaale wowga yar waxa uu la mid yahay anigoo haadan oo ku daray oo qaabkan aan ugu daray oo kale marka quraanku marka qaarkood wowga saas uu qoraa qaabkaas ka dhigaa taas waxaa loola jeedaa in wowga yari uu reeban yahay oo haadan la jiidayo haadan halkan waa haa weeyaan haadu markay ugu dambayso qaabkaas loo qoraa laba qaab baa loo qoraa waa mar goobintaas oo kale laga dhigayo iyo mar qaabkan loo qorayo waxaan dhammaantood waxaan ku soo qaadanay casharadii hore marka dib ugu noqo oo eeg qaybaha uu ka kooban yahay si fiican u eeg kabacdi ayaad heli doontaa halkan ayaynu soo qaadanaynaa jamiican bay ahayd iyo alladii lahu qaabkan ay u qoran tahay haddii aynu kala dhigdhigno intaasi jamiican weeyaan intan alladii lahu weeyaan oo alifkan kordhig ayaan maanta ka dhigaynaa alladii baan dhahaynaa alladii lahu marka alladii lahu waxaan sameynaynaa maanta marka qaabkii hore ayaan ka dhigaynaa meeshan can ay ku qoran tahay can oo can markii sideedaba saasaa loo qori jiray can iyo cin iyo cun
marka xarafka ugu dambeeya can haddii xaggan xaraf ka xigo caynka uu isbedelaya qaabkaas muuqaalkiisu qaabkan u noqonaya haddii xaraf can ka xigo laakiin haddii isagoo ku bilaabo saas oo kale u noqonaya sidan waan ka wadaa qoraalkaga yara khaldan marka hadda waxaan rabaa inaan markaas sameeyo can weeyaan laakiin ca baan rabaa inaan ka dhigo ca markaan rabaa inaan ka dhigo alifkan wuu kansalmaya alifka yar ee ku reeban ca saasuu noqdaa markay ca tahay jamiica ya jamiica saas weeyaan marka jamiica baan rabaa aniguna oo labadan shaqal ma doonayo alifkanna ma doonayo marka halkaa nuun ayaan soo gashanayaa nuunkii sideedaba qaanuunka ahaa ee hadda idin sharaxay marka jamiica markaad tiraahid nilladii baad haysaa jamiica nilladii lahu jamiica nil nuunkan waxa uu ku reebmayaa laankan haddii aad mararka qaarkood aad tiraahid sidee laankan kordhig buu halkaa kordhig weeyaan waxaas waa kordhig weeyaan laanka kordhig buu leeyahay uu reebmi karaa waxaan rabaa in aan ku baro qaanuunka shadku qaanuunkiisu waxa uu yahay in marka xarafka uu shadku saaran yahay laba xaba uu yahay mid reeban iyo mid kordhigan oo markaasi hadba shadka xarakada dul saaran ayaa laba halkii hadda laankan shadku dul saaran yahay laba xaba buu ka kooban yahay laan reeban iyo laan xarakada shadka dul saaran buu leeyahay marka waa laan reeban iyo laan kordhigan baa halkaas ka kooban yahay labada marka la isu keenayo waa inta sidaa la sameeyo baa shad la dul saaraa marka saasuu markii hore sanu ahaa laakiin markii dambe shadkaasaa loo helay qaanuunkaas shadka ah la yiraahdo ayaa saasa marka waxaad ku laabataa qaanuunka shadka aan kaga hadlayo ayaad dib ugu fiirsan doontaa marka jamiican soo yara koobo halkan caynkan laba baalkiga ah laba kordhiga hal xabaad ka dhigaysaa laba kordhigaasna waa tirtiray alifkaasna waa tirtiraysaa nuun baad keenaysaa nuunkan iyo laankaas isku qabanaysaa jamiicanil nil markaad tiraahid baa ladii dhahaysaa jamiicanil ladii lahu halkaasaad la maraysaa waxaa xigta xarafkana xigta xarafkani waxa uu ama waxaad tirahdaa jumladan badhe biraxmatin iyo udkhulu haddaan laba kala dhigo intan waa udkhulu xaggana waa biraxmatin iyada markaan isku xidhayo waa labadooda say isu dhinac yaalaan qaab kaloo yeelanaya taadaas halkaa ka muuqata hoos dhig keliya ka dhig oo labadan tirtir laba hoos dhig waa ka tirtirnaynaa way dhawaaqaasaas quraanka ah nuunkan hoos dhig keliya u sameeya hal nuun baad meesha keensanaysaa hoos dhiga alifkana waa tirtiraysaa marka waxay noqonaysaa برحمتين ادخلوا برحمتين ادخلوا marka qaabkaas ayuu noqonayaa birahmatin idkhulu ya xarafka kan ugu dambeeya waa xarafka ugu dambeeya aynu ku soo khatimayno waxaynu halkan ku aragnaa misbaahun intaasi waa laba weeyaan waa laba gudniin weeyaan misbaahun iyo al-misbaahu allah ayaa lagu dhawaaqayaa al-misbaahu marka markuu yahay al-misbaahu waxaan sameynaynaa marka ay isdhinac yaalaan haddaba kan marka aanay ku oolin oo meeshan aanay oolin tani ama meesha aan ku qornayn baa intaan al-misbaax la dhihi karaa laakiin haddii tan ku qoran tahay meeshan al-misbaax lama dhahayee labadan ayaa la isu keenayaa waxayna noqonaysaa sidaas tan xaadan hal gudniin ayaad ka dhigaysaa maxaa dhahaysaa misbaaxu alifkana waa tirtiraysaa nuun hoos dhigan ayaa keenaysaa nuunkan hoos dhigan iyo laankan ay isku qabanaysaa misbaaxunil misbaaxu misbaaxunil misbaaxu waa dhahaysaa marka qaabkaas ayay noqonaysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa kulley qaybtii ahayd qaybtan higaada ama dhawaaqa lagu dhawaaqayo qaabkaas intaas ayaanu yacnihii kusoo
afbeeri doonaa. waxaa loo yaqaanaa tanwiinta oo markaasi ka dambeeyo hamzatul wasli wax loo yaqaano. marka qaabkaas ayuu intiisa badan u daaran yahay. waxaan rajaynayaa inaad aad u fahantay, aad iyo aad inaad fahantay baan rajaynayaa. waayo waxa aan wadnaa waxa weeyaan in aan si yaroo fudud oo aad u qurux badan oo aan waqti badan ka qaadanin inaan kugu fahansiiyo higaada qur'aanka kariimka. marka qur'aanka kariimka ahi mar dambe way adkaan doontaa inaad laxni iyo waxyaabo kale oo aad ku akhrisid. waxay noqon doontaa higaadii lagugu bari jiray iskuullada ama dugsiyada dhee qur'aanka ama milcaamadahaba sida lahjaduhu ay kala yihiin. waxaad ka baran doontaa janalkan ay ku qoran tahay ECM Jama. janalkan waxaan ugu talagalay in wixii faa'iido ah ee xagga qur'aanka ee ilaahay iga baray in aan walaalaha kale aan usoo gudbiyo. marka insha allahu qawaaniintiisa wixiisoo dhan ayaan rabaa inaan halkan aan ku baro, weliba intiisa bilowga ah. intiisa kale insha allahu waxaan rajaynayaa haddaad inta bilowga qaadi inta kale waad fahmi doontaa. marka waxaa jira waxyaabaha loo yaqaano higaadi baan hadda wadnaa, laakiin tajwiid wax loo yaqaano ayaa jira. tajwiidkaasi isaguna waxa weeyaan goonidiisa weeyaan. xuruufaha la muujinayo, xuruufaha la qarinayo, xuruufaha waxaasoo dhanba way jiraan. xuruufaha qalqala lagu sameynayo, xuruufaha la qalqalaynaya, xuruufaha tafqiim ra iyo waxyaabahaasoo dhan waxa weeye isaguna waa mawduuc kale. kaasi hadda ma dhigayo, laakiin waxaan dhigayaa waxyaabaha asaasiga ah ee qur'aanka kariimka ee qaabka higaada. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.